Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada janalkeena YouTube. Haddii ay tahay markii koowaad ee soo booqato janalkeena, si sharaf leh waxaan kaaga codsanaynaa inaad janalka subscribe noo saarto, muuqaalkana like noo saar, noona sii share garee. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Maanta wuxuu ku saabsan yahay, waxaan ka hadli doonaa ereyo la soo gaabiyey oo caan ka ah meel walba oo ay dadka adeegsadaan, balse badanaa aysan aqoonin waxyaabaha laga soo gaabiyey. Ereyadaasi iyo ereyo kale ayaan ku arki doonaa janalkeena. Bal aan ku bilowno BBC. Aad ayaan u naqaanaa BBC haddaan nahay Soomaali. Hay-adda idaacadda Ingiriiska oo ah warbaahin madax bannaan, BBC waxaa laga soo gaabiyey British Broadcasting Corporation. Micnaheeduna waa hay-adda idaacadda Britain ama hay-adda idaacadda Britishka. Lambar 2. FIFA. Xiriirka kubadda cagta adduunka waxaa laga soo gaabiyey FIFA, kelmado Faransiis ah, Fédération Internationale de Football Association. Micnaheeduna waa xiriirka caalamiga ah ee kubadda cagta. Midda 3. AM iyo PM ee loo adeegsado waqtiga ama saacadda. Maxaa laga soo gaabiyey AM iyo PM? AM waxaan ognahay in loo adeegsado waqtiga subaxda ama gelinka hore, halka PM loola jeedo gelinka dambe. Laakiin maxaa laga wadaa? AM waxaa laga soo gaabiyey erey Laatiin qadiimi ah oo ah antemeridium oo laga wado gelinka hore. Micnaheeda saxna waa ka hor duhurka. Wixii ka soo bilowda 12 siqda dhexe ee habeenka ilaa 12 duhurnimo waxaa loo adeegsadaa AM. PM-na waxaa laga soo gaabiyey isla Laatiin, waxaana laga wadaa postmeridium, macnaheedana waa gelinka dambe ama duhurka kadib, waxayna ka bilaabataa 12 duhurnimo ilaa 12 saqda dhexe ee habeenka. Tusaale, 8:15 AM waxaa laga wadaa 8:15 subaxnimo. Sidaa oo kale, 8:15 PM waxaa loola jeedaa 8:15 galabnimo. www. Markii aan website furayno, waxaan magaca ka hormarinaa 3 xaraf ee www, waxaana laga soo gaabiyey World Wide Web, shabakadda weyn ee caalamiga ama shabakadda waasaca ee caalamiga. BMW waa shirkad Jarmal oo caan ah oo gawaarida samayso, waxayna caan ku tahay magaceeda BMW, laakiin waa xarfo laga soo gaabiyey jumladan af Jarmal ah. Aniga af Jarmalka ma aqaano, waxaa macquul ah ama laga yaabaa inaan si khaldan ugu dhawaaqo, laakiin muhiimaddu waa inay horteena ku taalo. Haddaba waxaa laga soo gaabiyey Bayerische Motorenwerk. Waxaa la wada ogyahay in xarafka W in ay Jarmalka ugu dhawaaqaan V, micnaheeduna waa shirkadda matooraha ee Bavaria. Bavaria waxay dhacdaa koonfurta Jarmalka. Bilowgeedii horena shirkadda waxay samayn jirtay matoorada, gaar ahaan kuwa diyaaradaha. FBI. Haddaba maxaa laga soo gaabiyey FBI? Waxaa jirta 2 FBI oo caan ah oo ka kala dhisan labada dowladeed ee Mareykanka iyo Indonesia. Haddaan ku hormarno FBI-da Mareykanka, waxaa laga soo gaabiyey, waxayna u taagan tahay Foreign Policy and International Development Act, waxayna tahay sharciga Mareykanka ee xiriirka arrimaha dibadda iyo horumarinta caalamiga ah. Haddii aan u soo laabanno FBI-da dalka Indonesia-na, waxay u taagan tahay Front Pembela Islam, oo micnaheedu yahay horumarinta Islaamka. Af Soomaali, FBI waa urur diimeed oo ka dhisan Indonesia oo inta badan ku caanbaxay howlaha bulshada iyo siyaasadaba, waxaana badanaa la xiriira mowqifyada adag ee ku saabsan sharciga Islaamka. VOA. Maxaa laga soo gaabiyey VOA? VOA waxay u taagan tahay Voice of America, oo ah idaacadda dowladda Mareykanka ee caalamiga ah, waxayna bixisaa warar, barnaamijyo iyo macluumaad kale oo loogu talagalay dhageystayaasha caalamka. ATM. Maxaa laga soo gaabiyey ATM? ATM waa qalabka lacagta lagala baxo, waxaana laga soo gaabiyey Automated Teller Machine. Halkaas ayuuna nooga egyahay muuqaalkeena maanta. Haddii uu ku cajab geliyey, nagu soo bir janalkeena oo subscribe noo saar, like-tuna noo saar oo sii faafiyo, share sii dheh. Aad iyo aad baan u mahadsantahay. Muuqaalkaana
meeqa ayaad ku qiimeyn lahayd? 10kiiba intee ayaad siin lahayd? Kommentiga noogu soo qor. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.